casharkan waxa uu ka mid yahay casharada kooraska Basics of Computer kooraskaas oo lagu baran doono computerka oo bilowga guud ahaan qaybihiisa kala duwan amba qaybaha bilowga ah ee computerka ka kooban yahay applicationka loo yaqaano Word-ka amba Microsoft Word-ka Microsoft Excel-ka iyo Microsoft PowerPoint-ka Microsoft Word waa applicationka inta badan lagu qoro documents-ka iyo waxyaabaha la xiriira halka applicationka Excel-na uu ka yahay applicationka xisaabaadka PowerPoint-na applicationka waxa weeyaan inta badan soo jeedinaha iyo warbixinaha aad ku soo bandhigi karayso iyo slideska iyo presentationada iyo wixii la midaba haddaba guud ahaan saddexdan application iyo waliba computerka bilowgiisaba waxa lagu bari doonaa kooraska Basics of Computers haddaba cidii u baahan inay warbixin dheeraad ah ka hesho waxay la soo xiriiri doontaa WhatsApp numberka shaashada hortaada kaaga qoran amba kaaga muuqda si aad uga hesho macluumaad dheeriya iyo wixii su'aalaad qabtana aad u soo weydiiso بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا لهانتين بكلانتي أبون إيسكو سنقد مركلي صاحب بيال 10 كينن maanta waxaynu ku baran doonaa amba aynu ku bilaabi doonaa sideen 10kii hore hordhacaaba kaga soo hadalnay application-kii loo yaqaanay amba Microsoft Word inaynu bilowno 10 keenan maanta waxaynu ku baran doonaa Word inaynu barano amba Microsoft Word inaynu barano oo aynu soo furno application-kii oo aynu chapter-kan iyo chapter-ka dambaba aynu ku jiri doono saadaradeed marka ugu horeysa xaggan menu button-keeni ayaynu soo furanaa menu button-ka marka soo furano ayaynu ku qoraynaa amba aynu ka raadinteeda wax kala maaha marka xaraf taabato meeshii raadinta ayaa ku soo furmaysa marka saadaradeed waxaynu ku qori doonaa amba aynu ka raadin doonaa Word baynu ku qori doonaa Word markaynu ku qornay waa kan soo saaray Microsoft Word 2007 ba kugu jira soo furbalaya marka markuu Microsoft Word ku soo furmo shaashada caynkana ayay noqonaysaa shaashada ugu horeysa ee ku soo baxaysa way ku kala duwanaan karayaan version-ka oo qaar kood baa waxa laga yaabaa qaarkii baa laga yaabaa inay 2010 isticmaalayaan amba 2003 marka mar walba hadii 2010 isticmaalayso waxa dooran doontaa bartay ku qoran tahay create new plan hadii aad isticmaalso 2003na marka soo furato in yar un bay navigation-ka sare ka duwanaanaysa laakiin inta badan waa isku mid saadaradeed shaashadan idin soo muuqata xaggan imka hadii wax qoraal ah ku qoro imka aan iraahdo imka sadarkiisaan waxa ku qoray aniga magacaygu waa Ahmed baan ku qoray marka qoraalka mar walba keyboard-kaaga caadiga ah ayaad kaga qoraysaa oo degaysaa qoraalka jeceshay ku qoraysaa marka hadaba qoraalkii ku qorto waxa la sameeynaa in qoraalkan la kala haabeeyo midna qoraalkii baan dooranaya haddaan doonayo inaan meeshiisii ka bedelo oo bartanka oo dhigo oo nimka kale ciwaan aan ka dhigo ciwaan baan nimka book baan qoraya midna bookayga waxa la yiraahdaa book riyooyinka la yiraahdaa waa kuwa nimka soo qortay book riyooyinka marka qoraalkayga waan wada dooranaya sababta dooranaysa kornahan ugu horeeya baalkan yare boodbooday cursor baa la yiraahdaa baalkan yare imika big tahaya cursor baa la yiraahdaa cursor-keena yar ayaynu saamar ugu wada jiidaynaa adigoo ma iska jiidaya haddii kale inta labada dhinac amba labada hareerood midkood ka dhigto ayaad u qabanaysaa shift kadibna xaga ugu shayso amba kornaha kale umaad ku dhufanaysaa dhamaantii wada highlight gareynaya marka dhamaantood wada dooratay waxa dooranaysaa taay ku qorantay center ee khanadan paragraph-ka inooga dhex muuqata marka centerkii geeyay oo taa centerka ku dhuftay hadii kale aan qabtay control iyo aan isla qabtay oo control iyo hadii aad qabato kornahan buu ku geenayaa waxa sameeynayna halkan ereygaygan aan ka soo doorto style-ka amba qaabka uu noqonayo qaabkaas uu noqonaya qaabka weyn buu noqonaya qaabkaas uu noqonaya title-kaaga amba ciwaankaagu qaabku noqonayo ayaad halkan ka soo dooran doontaa marka ciwaankayga qaabkan ma ka dhigay hadii aan tan ka saaro oo niraahdo normalkeeda ay ka dhig oo centerkii halkan ka doorto fartayda halkan ma ka kordhinaya marka eeda midna waa taayir oo dib u yareynaysa midna waa tan weyn oo imika halkan tan weyn waxa ku qoran grow front farta weyne tan kalena waxa ku qoran iyadana shrink front amba control iyo bracket-kaas isla qabanaysa marka way yareynaysaa midna farta way soo weyneynaysaa marka fartaydii baa weynaysanaya xagan kalena angle-kan yar baan soo furaya farta noociyaad jeclaato ayaad ka soo dhex dooranaysaa midabkii farta xarafkan ee bartay ku qoran tahay ayaad ka bedelaysaa marka midabkii aad jeclaato halkan ka soo dhex dooranaysaa bluegaas oo kale iga soo dhex doon background-keeda dambe imika background-kiisa dambe soo cadaan maaha inta imika aan doortay ayaan doonayay inaan background-keyga dambe bedelo xaggan ma soo saaraya background-keedii midabka igu bedel baan leeyahay haddii kale iga bedel madow iga dhig baan leeyahay background-ka marka hore wada dooro markaan wada doortay ayuu madow iga dhigay marka dhamaantii wada dooranaysaa mar wala doonaysaa inaad wax ka bedesho markaad wada doortid ayaad halkan tegaysaa oo soo furaysaa midabkaas oo kale aad leedahay iga dhig
marka iminka imuu doornayn marka iminka haddaan halkaasoo kale ku dhufto waan iska daynayaa intaan iga dhiliid garee baan leeyahay intaan ii wada door baan leeyahay tan ii soo fur baan leeyahay midabkaa madowga ahayd midabkaa ka dhig midabkaa ka dhig midabkaa ka dhig marka kuu dooran saasoo kale ka dul istaagto buu kuu sheegaya markaa kaa casaankaan ku jeestay iminka intaa waynu samaynay haddana iminka intan kale qoraal baynu ku qoraynaa adigoo keyboardkaagii caadiga ahaa adigoo ku dhex qornaya si aynu wax badan oo shaashadaan ay ka kooban tahay aynu si dheeraada amba warbixin dheeraada aynu ugu sii fahanno iminka saad arkaysaan halkan qoraal baan ku qortay waad ku mahadsan tahay qaabkaad iskaga soo dhammaan qaybahan iyo qaymaha kaleba adu qoraal baan ku qortay ujeedadan aanu leeyahay santay markaa qoraalkan dhowr qaybood ayaanu kala qaybin doonaa markaa intan hoose iga dhiliid garee marka koowaad intan sare waxaan ku doonaya inuu qoraalkiisa caadi ahaan igu noqdo kadibna intaa bishaarada iga dhex saar intaasaa markan idhi qaybtan kale waxaan doonayaa oon san ugu soo talagalay inaan qaabkan oo kale aan idinku soo qoro iminka intaa hoosoo kalena iga dhiliid garee waxaan iminka qaybtan ugu talagalay inaan nambaro u samayno hadhow tolo bugaag bay idin qoraysaan markaad ku samaynaysaan waxaa la doonayaa bugaagta inaad ka dhigtaan qaab nambaro oo kala ka dhiga inaad ka dhigtaan baa la doonaya waayahay waa si fiican xaggan markaad iminka haddaba dhammaantooda doorateen xagga ugu hooseysa xaggii ugu dambeysay baad tagteen ilaa xaggii ugu horreysay ayaan istaagay kadibna waan wada doortay xaggan ayaan tegaya soo furanaya numberiska markaan nambaro doonayo ma 1.2 qaabkaas u doonaysa inay hal dhibic saddex dhibic ku noqoto ma inay slashka amba bracketkaas isku soo xidho dhibicdii ka saarto romanticaas doonaysa inay ku tirso abcd baad doonaysaa masaasad u doonaysaa stylekii aad u doonaysay baad halkan ka soo dooranaysaa haddii aanad style u doonoona bullets aad u doonayso dhibaca yar yar goobooyin ku dhibaca afar geesiyo slideska caynkaas oo kala numberkii aad u doonaysay ayaad qaabkan oo kale usoo dooranaysaa marka taasoo kale iminka doortay matalan tii markaan doortay haddii aan saasoo kale aan idhaahdo oon idhaahdo taa koorna aan doortay centerial iga dhiga amba justify oo control jeya markaan doortay justify buu igu sameeyey oo xaggii uu isku wada sameeyey dhammaantood sidaas si lamid ah haddaan doonayo inaan nambaradii ka dhigtana xaggan uma soo furaya nambaradii baan kasoo dhex dooranaya intaana imikoodii la fahanteen farta haddaan doonayo inaan xajmigeeda weyneeyo waxaan idinku yidhi dhammaanteed markaan doorto tan baan ka weyneynaya bold baan ka dhigayaa oo far soo taagtaagan baan ka dhigayaa tujiiftaan ka dhigayaa oo itaaliga hoostaan xariinji yar ka marinaya amba layn yar baan ka xariijinaya haddii iminkaan xariinjintan kasoo baxo matalan oo kale marka imtixaanka la qaadayo waxaa la sameeyaa haddaan dhammaantood iminka intaan doorto aan idhaahdo underlineka ka daa oo underline ha u samaynin underlineka ka saar iminka dhammaantood aan idhaahdo iminka matalan oo kale su-aashii koowaad ayaa intaan ku leeg waad ku mahadsantahay qaabkaad iska soo diiwaangelisay oo kale marka iminka waxaan idhi one dot oo su-aashii koowaad uun iska dheh weeyaan matalan dotaya one dhibic hal iyo dhibic baan dhigay marka iminka intaa markaan saa idhi waxa weeyaan iminka oo kale waxaan doonaya inaan buuxbuuxbi oo kale meesha ka dhigay intaasoo kale saa idhi kadibna space dheer baan saa u waday oo meel bannaan baan saa u tahay waxaan doonaya intan oo dhan inuu line marsanaado meesha inay banaantahay aan eego markaad intii oo dhan dooratay maxaad samaynaysaa underline ubaad dooranaysaa lineka noocaad ka dhigaysidna halkan baad kasoo dooranaysaa makaa dhibcahala makaa saasa makaa sidana makanba kolba linekii halkan baad kasoo dooranaysaa marka iminka saas ayuu ku noqonaya marka intaasoo dhan iminka waa sidaa haddii aad doonayso ereyada halkan ku jira iminka matalan oo kale ereyga waxaan doonayaa linki ereygaasoo kale inaan soo helo kadibna waxaan idhi find kadibna waxaan qoray link next baan idhi isagaa si toosaba igu saaray waa halkan hoose igu saaray link haddii aan cancel idhaa oon meel bannaan dhigo oon fine idhaahdo ii soo hel oon xaggan ku qoro iminka oo kale gan ereygaa gan ayaan doonaya inaan idhaahdo gan ii soo hel haddii aan idhaahdo gan haddaan idhaha ii soo hel fine next baan leeyahay waa kaa ii soo helay haddii aan idhaahdo finena wuxuu ii soo eegayaa main documents haddii aan iska soo xidho ereygii gan wuu ii soo xidhay haddaan doonayo ereygan gan inaan erey ku bedelo replace baan leeyahay ereyga gan meeshuu ku jiro waxaad ku bedeshaa ereyga jaw ku bedel jaw oo kale ku bedel find the next baan leeyahay yes baan sii dooranaya marka waxaan leeyahay replace all baan ujeedaa replace all ayaan leeyahay yes baan leeyahay okay baan siinaya haddii iminka aan ka baxo ereygii muxuu igu bedelay jaw buu igu bedelay saas ayaa qaabka weerka loogu isticmaalo pagekiisan ugu horeeya ee homeka casharkeenan maantuna bartaasuu inoogu joogi doonaa tan iyo intaynu isugu iman doonaa casharka ku xiga waa aniga oo idinka idin leh ismaqal aragti dambe oo xiiso badan.